Altay kadib markii uu gaariga bamka uu qaaday ma uusan dhimanin. Sidoo kale saaxiibayaal makaanikiistaha meeshaas waa laga kaxeeyay oo askartii xumeed ayaa u timiday. Meesha dhibaato fara badan ayaa ka dhacday kadibna waa la kaxeeyay. Dhankan kale Neslihan aad ayay uga xanaaqday arrinkaasi ayadoo doonaysay makaanikiistaha isagoo nool inay gacanta ku dhigto oo aanay marnaba baxsanin. Sidoo kale saaxiibayaal wiilkan lagu magacaabo Korkad waxa uu mar kale badbaadinayaa Xamdi wuu difaacayaa difaac dheer kadib isagii Xamdi way wada kulmayaan kadibna xabad Xamdi loo wada ayaa Korkad isku dhigi doono oo dhaawac ayaa soo gaaraya. Xamdina arrinkaasi aad ay uga xumaanaya wuxuuna dhakhtar u qaadayaa Korkad isagoo ku dhahayo walaal hayga dhimanin oo howlo badan ayaa qabiyo ah. Mudane Xamdi waxa uu guriga keeni doonaa Korkad isagoo aad ugu walwalsan xaaladiisii. Dhakhtar ayuu guriga ugu wacaya xabadan waa laga saaraya. Sidoo kale saaxiibayaal ninka lagu magacaabo Altay waxa uu ogaanayaa wax walba oo banaanka ka dhacay maadaama isagu uu mashquulsanaa bamka gaarigana uu kaxeynayay. Wuxuu ogaanayaa magaalada inuu qarax waxyaalahaas ka dhacay. Wuxuu u soo noqonayaa ninkii isagu ku xirayay qolkiisii kadibna cadaadis fara badan ayuu saaraya wuuna waabsanaya. Ugu dambeyntii xogo dhowr ah ayuu u sheegayaa ninkaasi. Dhankan kale makaanikiistaha wuxuu qaadanayaa farxadiisii wuu ku faraxsan yahay xuriyadiisii helay laakiin weli ma uusan tagin gurigiisii kaliya wuxuu joogaa ciidankii isaga soo badbaadiyay gurigoodii. Sidoo kale wuxuu si live ah ula hadlayaa boqoradda wuxuuna u sheegayaa inay wax walba hagaageen ayna ku mahadsantahay wax walba isaga u sameysay. Sidoo kale boqoradda waxay ku dhahaysaa hadeertan hawsheenu waa bilow ameestireen u baahanahay. Okay isagu wuxuu dhahayaa ma jirto wada kale anaga sirta aan ku heli karno. Waxay dhahaysaa wada way noo banaan tahay. Kadib markii wadada weydiiyay waxay ku dhahaysaa iyada waxaan u baahanahay Turkida inay heshiis la galno yacni waynu la heshiinayna kadibna waynu qayaanayna sirta sidaas aynu ku ogaanayna. Laakiin makaanikiista wuxuu dhihi doonaa midaas suurtagal maha balse iyadu waxay dhihi doontaa suurtagal waa laga dhigayaa waxay ka jecel yihiin xaggeeda ayaa laga soo marayaa. Dhankan kale Korkad wax badan ayuu suuxsanaanayaa kadibna wuu soo kici doonaa. Marka uu soo kaco waxa uu ka war helayaa walaal Xamdi oo nin aad u inqaabayo. Ninkaas oo si xun u inqaabayo wuxuu dhahayaa bal ii sheeg sababta weerarka la igu soo qaaday. Iina sheeg yaa ka dambeeyay weerarka in la igu soo qaado. Wiilka isagoo adeerka u yahay Saadaad meesha ayuu taagnaa aad ayuu u cabsanayay. Xamdi si xun ayuu u garaacaya ninka kadibna wuu ka tagayaa. Ugu dambeyntii Korkad waxa uu tixraacayaa hadal uu maqlay kadibna banaanka ayuu aadaya wuxuuna arkayaa ciidan la kulmayo qofkaas oo isqarinaya. Ugu dambeyntii qofka wajigiisa uu arkaya waana Saadaad. Hadaba weerarka walaal Xamdi lagu soo qaaday waxa ka dambeeyay wiilka uu adeerka u yahay Saadaad. Hadaba Xamdi muxuu sameyn doonaa markii uu ogaado in wiilkiisa wax walba xumaantaas uu sameeyay. Wajigan kale saaxiibayaal Xamdi waxa uu go'aan ku gaaray hadeertan inuu ku soo laabto noloshiisii hore iyo gaangistirnimadiisii hore. Sidoo kalena saaxiibayaal wuxuu gacan iyo garab weydiisanayaa Korkad si uu u caawiyo. Hadeertan wuxuu dhaanay adiga waxaan nahay garab waxaan nahay walaalo. Korkad arrinkaasi wuu ku farxay maxaa yeelay isaga Korkad wuxuu ku qasban yahay Xamdi inuu ku celiyo wasaqdii hore si uu u ogaado dadka Xamdi ka dambeeyo ama dadka Xamdi uu la shaqeyn doono kuwa ay yihiin. Hadaba saaxiibayaal Korkad wadadiisii way u hagaagtay taasoo ahayd inuu Xamdi noloshii hore ku celiyo. Xamdi xaaskiisii Korkad ay qolka ugu soo galaysaa waxay rabtaa Korkad inay dareen ku abuurto yacni ay u dhawaato si ay u caawiyso isagii Xamdina isugu dirto. Laakiin Korkad wuu fahamsan yahay qorshe waliba wuxuuna isleeyahay midaan qorshaha ay igaga ciyaar rabtaa. Dhankan kale saaxiibayaal Altay waxa uu imaanaysa Neslihan ayadoo ku dhahayso wax qaladan ayaa sameysay arrinta haddii ay dawladda quseysana aniga xataa aabahay uma naxariisan doonay Altay ku dhahaysa. Sidoo kale waxay tusinaysaa sawiro ah in gaariga uu bam ku xirnaa Altayna si qarsoodi ah uu gaarigaasi ku soo tuuray. Waxayna ku dhahaysaa haddii aad aniga ila socodsiin lahayd saacadan makaanikiista muusan naga baxsan lahayn wax walba inaan nala socodsiisid ayay ahayd. Iyadii Altay arrin aad u xasaasi ay ku wada doodi doonaan saaxiibayaal balse waxa aad uga xumahay in labadooda iska soo horjeed oo labadooda ka dhex dhacay. Laakiin isla mar ahaantii saaxiibayaal waxa lagu soo qaadi doonaa weerar yacni sababta weerarka loogu soo qaaday waa Neslihan darteedii waxay rabaan ayaga Neslihan inay ka haystaan si lama filaanaya taleefanka anteenadiisa ay bixinayaan li'annu haddii weerarka la soo qaado waxay og yihiin inay gargaar degdeg ah dalbanayaan balse labadooda anteenka muu shaqeynaa. Altay wuxuu ogaanayaa in weerar lagu soo qaaday isla mar ahaantii guriga ayaa xabado lagu soo shaqayaa wuxuuna ku qarin doonaa Neslihan qaybta hoose kadibna qaybta hoose ay ka sii baxayaan wayna sii ceersan doonaan. Laakiin halis aad u weyn ay galayaan Altay wax walba ayuu sameyn doonaa si uu Neslihan u badbaadiyo. Ugu dambeyntii Neslihan wuu badbaadinayaa balse isaga
ayay gacanta ku dhigi doonaan dadkii. Maadaama Nislihan targetkooda oo ahaa haddana Altay ayay gacanta ku dhigeen oo ay ka haysteen. Altay iyo Nislihan inta ay dhibaatada ku jirin ka hor, Altay waxa uu sheegayaa in Nislihan guriga ay tagto haddii ay ayada badbaado. Kadibna ay soo qaaddo katiinada guriga taalo. Maxaa yeelay katiinadaas camera ay ku xiran, waana katiinadii ay lahayd Celine. Nislihan way soo baxaysaa, katiinadaas ay qaadaysaa si ay u geyso xarunta baaritaan ee ugu sameyso. Sidoo kale saaxiibayaal, ninkan lagu magacaabo Xamdi waxa uu kaxeynaya Korkaad, waxayna aadayaan howlgal. Yacni Xamdi adeertan wuxuu u soo jeestay in uu soo ceshto sharaftiisii hore ee ka luntay, isagoo weliba garabsanaya Korkaad. Kadib markii ay ayada katiinada soo qaadato, Altay gacanta waxa ku dhigaya makaanikistaha, laakiin wuu ka soo badbaadayaa. Wuxuuna soo helayaa boorsadii walaashiisa Celine darteeda loo dhibaateynayay iyo waxyaalaha ku jiran wuxuu rabaa inuu ogaado. Sidoo kale inta saaxiibayaal, Nislihan waxay furaysaa katiinadii, waxaana ka soo baxay muuqaal Celine ah. Waxayna ugu sheekeynaysaa wax walba boorsada ku jiro. Dhaar ay dhaaratay inay sirta qarin doonto, yacni wax walba way ka sheekeyn doontaa. Sidoo kale inta waxay dhahaysaa haddii lacala aniga meeshaas ku dhinto, waxaan rabaa qofka iga dambeeyo inuu wadankeena difaaco. Laakiin Nislihan waxay ku dhaaranaysaa wax walba oo dhaco, khasaaro walba oo dhacdo, in boorsadaas dib loo soo celin doono, maadaama ay hadeertan ogaatay wax walba ku saabsan boorsadaasi.